mar walba oo kiiska Jeffrey Epstein dib loo fiiriyo waxaa la arkay sir kale oo cusub iyo gabdho dulmanayaal ah oo aamusan, waxaana la ogaaday kolkani in Jeffrey uu ka tirsanaa xiriir saksi taraafik ah oo dunida qaybo badan oo ka mid ah ka jiray. kolkanina waxaa la ogaaday magacyo cusub oo ku lug lahaa kufsiga ciyaalka yaryarka ah, weliba Prince Andrew. waxa uuna ka mid yahay qoyska boqortooyada Ingiriiska Elizabeth. qoyskani dad badan waxa ay ka sheegaan waxyaabo aad u foolxun, inkastoo aysan jirin wax kiis ama macluumaad laga qoray. magacyada kale ee soo ifbaxay kolkani waxaa ka mid ah abukaati Ellen Jones. abukaatigani dadka Jeffrey Epstein badbaadintiisii ka shaqaynay ayuu ka mid ahaa. gabar ayaana waxa ay sheegtay in isaga iyo Prince Andrew in kufsi ay ku sameeyeen. gabdhaha marka ay rabaan in qof kale ay ka iibiyaan, bilowgii waxaa caadadoodu ahaan jirtay in gabadha ay ugu sheekeeyaan sida dad waaweyn oo mas'uuliyiin ah, haddana taajir ah in gabadha ay bari doonaan. albaabada dadka taajiriinta daafaha adduunka sida qof loo furay oo kale ayaa gabadha laga dhigi jiray. adduunka oo dhanna meel walba diyaarado u qaas ah ayaa lagu kaxayn jiray. tanina waxay ahayd waddada dadka caanka ah dumarka qaaradaha adduunka isaga soo kala xawiishtaan. abukaati Ellen Jones waa qof waayeel ah oo lagu yaqaano sharciga dastuurka iyo sharciga ciqaabta Maraykanka. waxa uuna dhahay isaga oo inkiray eedeymahaasi, marnaba qof aanan qaangaarin xiriir jinsi ah lama aanan samayn inta aan weynaaday iyo intii aan yaraaba. sidoo kale qof xiriir la leh Jeffrey Epstein weligay xiriir jinsi ah lama samayn. gabadhuse waxa ay ku adkaysatay haddii run ay jirtay cidda runta sheegaysa ee dulmanaha ah waa aniga ayay dhahday. balse 10 sano ka hor wax dhacay maadaama ay yihiin oo dib dambe caddayntiisu aanan loo heli karin. dacwadani waxa ay noqotay mid sugnaansho aanan lahayn. magacyada kale ee soo ifbaxay sida Prince Andrew oo boqortooyada Ingiriiska ka tirsan, marka dacwadani social media iyo idaacaduhu ay ku faaftay, ugu dambeyn waxa uu waraysi siiyey idaacadda BBC-ga. su'aasha gabadha soo eedeysay marka la weydiiyeyna waxa uu ku jawaabay, aniga ma xasuusta marnaba gabadhaasi in aan isbaranay, weligayna xiriir jinsi ah lama samayn qof aanan qaangaarin. saxafiyadda BBC-ga ee waraysigaasi waxa ay durba u soo bandhigtay Prince Andrew tay sawir isaga iyo gabadhaasi iyo Ghislaine Maxwell ay ku wada jiraan. waxa uuse ku jawaabay Prince Andrew, sawirkaasi meel lagu qaaday xitaa ma xasuusto. gabadhuse si waadax ah ayay u soo bandhigtay qaabka sawirkaasi loo qaaday iyo xilligii Jeffrey Epstein uu ka iibsaday Prince Andrew. xilliganina dacwada Jeffrey Epstein waa mid xiran, keliya meediyaha iyo dadka u baahan in ay wax baaraan waa mid ay ka hadli jireen. markii la doortay Donald Trump, gabar horaan dhibana u ahayd oo Spain laga soo waday Jeffrey Epsteinna jasiiradiisii uu ku kufsaday ayaa inta ay u dulqaadan weys ayaa waxa ay go'aan ku gaartay in meediyaha ay ka sheegto laga soo bilaabo Donald Trump ilaa Hillary Clinton in xiriir uu ka wada dhexay Jeffrey Epstein ninkii iyada kufsaday. balse dadkani dad waaweyn oo saameyn leh maadaama ay ahaayeen hal idaacad oo gabadha warkeedii soo qaadatay ma aysan jirin. kadibna iyada iyo koox kale oo gabdho sidoodii oo kale loo dulmi ayaa waxa ay baraha bulshada ka bilaabeen hashtagga #MeToo 2017. hashtagganina qof walba oo horay kufsi sidani oo kale ula soo kulmay ee dhibkaasi qansanay ayuu sabab u noqday in bannaanku u soo baxo. qof walibana hashtaggani marka uu isticmaalay kumanaan qof ayay noqdeen. hashtaggani MeToo-na waxa uu noqday sida uur dhaqdhaqaaq ah oo social mediaha taageero aad u weyn ku dhex leh. kadibna dhammaan telefishinada iyo idaacaduhu waxa ay bilaabeen in hashtaggani ay ka hadlaan kumanaan dumar ah in ay sheeganayaan kufsi yaraantoodii in loo geystay. gabdhaha qaarkood waxa ay sheegeen iyaga oo ka niyad jabsan oo rumaysan in marnaba Jeffrey Epstein maxkamad uusan hor imaan doonin, ayaa hashtaggani marka baraha bulshada ay ku arkeen waxa ay bilaabeen in dhiiranaan ay dareemaan. hashtaggani kufsiga ee MeToo-gana adduunka oo dhan wadamo badan ayaa dumar kufsi sheeganay ka soo baxay, xitaa Soomaalida dhexdooda 2017 marka dhaqdhaqaaqani Maraykanka uu ka soo ifbaxay kadib social mediaha Soomaalida waxaa soo ifbaxay si isdaba joog ah dumar cabasho kufsi sheeganaya, inkastoo waqti kadib mawduucaasi dadku iska hilmaameen. hashtagganina Jeffrey Epstein tiimkiisu wax weyn uma aysan arkayn maadaama wax social mediaha ku kooban oo keliya uu yahay. iyada oo xaaladdu sida ay tahay dhaqdhaqaaqa MeToo-gana uu socdo ayaa madaxweynihii hore ee Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay in wasiirkiisii shaqada uu u magacaabay Alexander Acosto, waana ninka horaan kiiska dacwada ee Jeffrey Epstein sabab la'aan u kansalay. siyaasiyiinta waxaa dhaqan u ah marka qof cusub saaxadda siyaasadda uu ku soo biiro ama xil loo magacaabo in dabagal ay ku sameeyaan
qofkaasi kuma ayuu yahay, muxuuse qaban jiray. durbaba qaar ka mid ah siyaasiyiinta oo Alexander Acosta dib u muraajaceysay taariikhdiisu waxa ay la kulmeen hadallo badan oo foolxumo ah oo ninkani laga qoray. 2008 ayuu kiiskii Jeffrey Epstein sabab la'aan ugu xiray. arrintaasina dad badan maadaama ay ka xanaajisay maalmo badan in joornaalada lagu daawaco ay sabab u noqotay. kiiskani marka siyaasiyiinta qaarkood ay arkeen ayna isku dayeen inay dul istaagaan, waxa ay heleen duleel Alexander Acosta ay ku dhaleeceyn karaan. Alexander si magdahan oo fasiix aanan ahayn waxa uu dhahay go'aankaasi in kiiskaasi la xiraa waxa uu ahaa mid si wadajir ah loo qaatay. isla markiiba marka uu hadalkani Alexander uu dhahay booskiisii xeer ilaaliyihii ku jiray kiiskaasi la xiraa ayuu dib u fiiriyey. waxa uuna soo saaray waraaqad uu ku muujinayo in Alexander Acosta uu galay inta uu xilka hay qalad, dacwaduna waa mid mar kale booskeedii laga wadi doono ayuu dhahay. hadalkanina waxa uu ka farxiyey boqolaal dumar ah iyo boqolaal abukaatiyaal ah oo doonay in cadaalad ay helaan. muddo 10 sano iyo xoogaha in xeer ilaaliyaha uu ku dhawaaqo kiis 10 sano ah in dib loo fiirin doono, iyada oo weliba dumarka qaarkood ay noqdeen kuwa maamooyin ah, waxa ay noqotay mid dareen leh. isla markiiba FBI-du waxa ay bilowday in gabdhihii la dulmiyey mar kale dacwadoodii si qarsoodi ah inay u dhagaysato. muddo 3 bilood ah ayay dacwo aruurinta FBI-du ay waday. xaaladanina Jeffrey Epstein iyo tiimkiisu qof ka mid ah dacwadani in gabdhaha waraysi lala sameynayo ma uusan ogeyn, waayo gadaashoodii waxaa isbedelay dhammaan sistamka. dadkii xilka hayay xilligoodii booskoodii dad kale oo cusub ayaa galay. FBI-du baaritaanku waxa ay ka bilowday New York, halka Jeffrey Epstein shaqadani uu ka bilaabay. bilowgii baaritaanka Jeffrey Epstein oo dhan waxa uu ka socday Florida. kolkani FBI-du waxa uu caddaatay in Jeffrey Epstein uu yahay qof dambiile ah oo wax walba ay ku cad yihiin, isaga oo aanan ogeyn marka diyaaradiisii qaaska ahayd ee soo caga dhigatay New York eleboonka Teterboro ayaa booliisku halka ay ka soo qabteen. marka aeroboonka New York lagu soo qabtay saxaafadda Maraykanka oo dhan hadal shock ah oo lama filaan ah ayay ku noqotay. idaacaduhu waxa ay hadalka ku bilaabayeen milyaneer Jeffrey Epstein oo loo haysto sagsiga ciyaalka yaryarka ayaa la xiray. gabdhaha qaarkood sida riyo oo kale ayuu hadalkani la noqday. qaar ayaa waxa ay dhaheen iyaga oo dib uga waramay hadalkani marka telefishinka ay ka maqleen. telefishinka ayaan fiiriyey, mar kale ayaan fiiriyey, way ii cuntami weysay. mar saddexaad si aan u hubsaday ayaan fiiriyey, waayo Jeffrey Epstein mar in la soo qaban doono waxay ila ahayd mid aanan abadiyan dhici karin. isla markiiba marka hadalkani subaxii uu faafay, gabdho badan ayaa waxa ay u soo safreen magaalada New York si uun ciilka haya mar Jeffrey Epstein wejigiisii isaga oo maxbuus ahay u arkaan. subaxii wasiirka cadaaladda ee New York ayaa saxaafadda hortiisii ka hadlay. waxa uuna yiri marka hadalkiisii nuxurka laga soo qaato, cadaaladda qofna kama sarayn karo, si kastoo qofku u noqdo mid milyaneer ah. Jeffrey Epstein eedeymaha dhowrka ee lagu haysto ayaa loo soo xiray. Jeffrey Epstein isla markiiba abukaatiyaashiisu waxa ay bilaabeen dhaqdhaqaaq iyo ku dadaalista sida ay u soo badbaadin lahaayeen. muddadaasi Jeffrey Epstein la soo qabtay subaxii booliiska New York ayaa guriga Jeffrey Epstein albaabkiisii xoog ku soo jebiyey si daliil dheeraad ah ay uga helaan guriga Jeffrey Epstein. guriga New York Jeffrey Epstein uu ku lahaana qiimihiisu waxa uu ahaa $77 milyan oo dollar. meel walba oo guriga ka mid ahna waxaa ugu dhegneed Jeffrey Epstein sida la arkay kaamiro qaas ah. gaban walba qol u gaar ah iyo suuli u gaar ah sida hoteelka oo kale ayay lahayd. nasiib daro suuliga xitaa waxaa ku dhegnaa kaamiro. booliiska marka gurigiisii New York ay soo galeen waxa ay heleen boqolaal sawir oo gabdho qaaban, cajalado badan oo muuqaalo anshax xumaha ay ku jirto. xaqiiqdii ilaa hadda waxa aanan la fahamsanayn oo sida sirta oo kale u qarsan ayaa waxa ay tahay waxa sawiradaasi Jeffrey Epstein uu ku samayn jiray. ma xusuus ahaan inuu u haysto ayuu doonayay gabdhaha si qaaban sawiradooda, ama wuxuu u soo bandhigi jiray saaxiibadiisa si ay u doortaan gabadha uu u soo transfer garayn doono, ama isaga miyaa sawiradaasi masturbation uu ku samayn jiray. ilaa hadda qof jawaab u helay su'aalahani ma ay jirto. Jeffrey Epstein kolkani si qarsoodi ah oo bilaa taxaddar ah ayaa lagu soo galay. abukaatiyaasha oo dhan waxa ay dhaheen haddii dacwadani Jeffrey Epstein horaan uu ogaan lahaa
marnaba Maraykanka dib dambe cag uma uusan soo dhigi lahayn, balse wixii qornaa ayaa ku dhacay. Waxaa lagu ballamay maalin cayiman in maxkamadda la hor keeni doono. Gabdhaha dhibanayaasha kuwii hadlay waxaa jaanis loo siiyey in maxkamadda Jeffrey Epstein hortiisu ay ka sheegaan wax walba oo calooshoodii ugu jiray. Mid ka mid ah gabdhahaasi ayaa waxa ay dhahday xaqiiqdii maalintaasi gabdhaha dulmanayaasha ee New York soo buux dhaafiyay si uun Jeffrey Epstein oo maxkamadda hortaagan ay arkaan waxay ahayd maalin qaas ah oo dareen leh. farxad darteeda ilmo ayaa inaga soo qubanaysay. Marnaba fursad noocani oo kale ah inay ina soo mari doonto uma malayn jirin. Waxaan arkay Jeffrey Epstein oo labiska dadka maxbuuska xiran oo kursi ku fadhiya. Waxa uuna ku qasbanaaday maalintaasi isaga oo dulaysan si kastoo faruuraha uu u qaniino inuu dhageysto hadalkeeni. Waxaana u sheegnay dhammaan wixii uu inagu samayn jiray. Waxaana qaaliga maxkamadda aan ka codsanay in abadiyan xabsiga lagu iloobo. Jeffrey Epstein abukaatiyaashiisu waxa ay qaaliga maxkamadda ay ka codsadeen in damiin lagu daayo, beddelkiisana lacag ay bixiyaan. Waxa ay soo bandhigeen $100 milyan inay bixiyaan haddii mar un Jeffrey Epstein maxkamadda damiin looga soo daayo. Marka laga diiday way ka badiyeen lacagta intaasi $500 milyan ayay ka dhigeen si maxkamadda mar un Jeffrey Epstein damiin looga soo daayo. Sida dabiiciga ahna qofka maxkamad waa ay deyn kartaa haddii qofka damiin uu wato, balse qaaliga maxkamadda marka kiiska Jeffrey Epstein uu qiimeeyay waxa uu ogaaday in ninkan gurigiisii laga helay baasabooro feeg ah oo sawirkiisii iyo magacyo kale ay ku qoran yihiin. Mid ka mid ah baasaboorkaasi waxaa ku qornaa in Jeffrey Israa'iil uu ku dhashtay, Yahuudna uu yahay. Way caddeed haddii Jeffrey Epstein kolkaasi damiin lagu deyn lahaa isaga iyo damiinkaba mar dambe Maraykanka dib uguma aysan soo laaban lahayn. Maxkamaddu go'aankeedii waa uu caddaa, wax damiin iyo lacag midna ma ogolin in Jeffrey lagu daayo ayay dhahday, maadaama jaanis uu ku baxsada looga cabsi qaba ninkani. Arrintu marka ay halkani soo gaartay qof walba oo Jeffrey yaqaanay ama qof walba oo caan ah, xitaa kuwa sawirada laga hayo, mid walba waxa uu bilaabay in codkiisii uu gaabiyo. Donald Trump marka uu xilka hay ee Jeffrey Epstein maxkamadda la hor keenay waxa uu dhahay ninkaasi 15 sano ka hor ayuu khilaaf ina soo dhaxgalay, mar dambaba islama aanan hadlin, maba jecli ninkaasi. Clinton madaxweynihii horena waxa uu dhahay 10 sano Jeffrey Epstein marnaba islama aanan hadlin, xaqiiqadiisuna ma aha nin aan aqaano. Qaar kale oo badanna waxa ay dhaheen saaxiibo weligeena Jeffrey Epstein ma noqon, balse qof ay is yaqaaniin ayaa qof kale igu soo xiray. Sidaas ayaana waxaa dhici jirtay in sawiro dhammaanteen la inaga wada qaado. Si kooban qof walba inuu inkiro uu masaafo dheer Jeffrey uu iska istaajiyay ayuu bilaabay. Waana xilli Jeffrey cid cadaalada uga gargaari kartaa haddii lacagtiisii uu isku furan karo ama haddii saaxiibtinimo ay badbaadin karta midna aysan jirin. Maalmahaasi oo dhan 2019 Jeffrey marka uu meel walba uu qabsaday Alexander Acosta si uu u muujiyo dareenkiisii ku aadanaa xiritaanka Jeffrey Epstein, saxaafadda inta uu soo hor istaagay ayaa waxa uu u sheegay inuu ku faraxsan yahay waxa booliiska New York ay sameeyeen. Jeffrey Epsteinna si fiican oo cadaaladda waafaqsan ayaa sameysteen ayuu dhahay. Hadalkanina dad aad u badan ayuu ka caraysiyay, sida adiga xilliga aad xilka haysay maxaa sidan oo kale u sameyn weysay, maxaa ninka heshiis ula gashay. Dacaayado badan marka Alexander Acosta ay ku bateen isaga iyo Donald Trump oo isla socda waxa ay soo hor istaageen meediyaha. kadibna halkani ayuu Alexander Acosta isku casilay. Donald Trump iscasilista Alexander Acosta waxa uu sheegay inuu aad uga xun yahay, waxaana la sheegay in Alexander Acosta sidan uu u sameeyay in nafsadiisii uu badbaadiyo. Si kastoo ay ahaataba, Jeffrey Epstein marka isaga iyo abukaatiyaashiisa doodoodii la dhageystay, natiijada maxkamadda waxa ay noqotay in xabsi waliba aad u adag in Jeffrey Epstein la dhigi doono, waxaana la geeyay qol ciriiriya oo keligii uu ku yahay, waliba xabsi nooca dadka argagixisada ee dhibka badan ay ku noolaan jireen. Inta aanan xabsiga la geyn ka hor, maadaama qof lacag leh uu ahaa, waxa uu qoray dardaaran taasoo ah in maalkiisii oo dhan jasiiradda uu leeyahay in loo xabilo. Wixii uu sameeyeyna inuusan ka xumayn, waliba luuqad aad u foolxun ayuu ku qoray. Hoosta waraaqadana waxa uu ka saxiixay in maalkiisa jasiiradaasi loo raro. 2 maalin kadib, xilli habeena sidii hore, waxaa meediyaha ku soo dhacay hadal kale oo cajiib ah. Jeffrey Epstein isaga oo meeda ayaa laga helay qolka xabsiga. Waxa ayna geeridani Jeffrey Epstein ay ka xanaajisay gabdho aad u badan oo doonay in sanado badan xabsiga uu ku nagaado.
qaar badan ayaa waxa ay rumaysan yihiin in arrintani arrin kale ay ku hoos qarsan tahay. Baaritaan lagu sameeyey xabsiga iyo waxa sababay geerida ayaa waxaa la sheegay in xabsiga kaamirooyinkiisu ay damsanaayeen xilligii isdaldalaadu ay dhacaysay, waxaana la sheegay xilliga Jeffrey Epstein xabsigu isku daldalay in ilaalada warba aysan u hayn. Si loo ogaado macluumaad dheeraada, meydka Jeffrey Epstein waxaa loo diray shaybaar si loo baaro in la dilay ama in isaga uu isdilay. Aqoon-yahanada shaybaankuna waxa ay sheegeen in suurtagal aysan ahayn in qofkani isaga uu isdilay, waayo raboorka dowladda waxaa lagu qoray in qofkani firaashka joodariga inta uu sida xarig oo kale uu ka dhigtay ayuu dhuunta isagaga xiray, kadibna firaashkaasi ayuu isku ceejiyey, sidaas ayuuna naftiisii ku dilay. Aqoon-yahanada shaybaankuna arrintaasi inaanay suurtagal ahayn ayay sheegeen. Si taasi ay u dhacdo waxa ay leeyihiin waxaa loo baahan yahay oo qasab ah ayay dhaheen in qof uu caabiyo, waayo Jeffrey Epstein dhuuntiisii waxaa la arkay in ay jabsan tahay. Suurtagalna ma aha in keligii dhuuntiisii uu jebiyo, laazim waxa ah in qof kale uu ku caabiyey geeridani. Si kastoo ay haataba, Jeffrey Epstein habka uu ku dhintay xitaa mid dood iyo shaki laga keena ayay noqotay. Dad badan ayaana waxa ay rumaysan yihiin in Jeffrey Epstein si kas ah loo dilay. Sababta loo dilayna waxa ay leeyihiin waxaa laga baqay in sir badan bannaanka ay u soo baxdo. Waxaa muuqatay in gafafkani iyo kufsiga carruurtani shabakad dheer oo ay weheliyaan dad aad u badan oo caan ah in ay jireen, sidaasi darteeduna waa laga baqay in sirtani bannaanka ay u soo baxdo. Xal kale ama waddo lagu badbaadin karo maadaama aysan jirin ciqaabtiisuna ay sugnaatay, waxaa xal loo arkay in ninkani xabsiga lagu dilo. Jeffrey Epstein marka uu sidaasi u dhintay, abukaatiyaashiisu kiiska dacwadiisii in la soo xiro durba ayay dalbadeen. Ilaa haddase arrinta Jeffrey Epstein waa mid taagan. Gabdhaha yaryarka ah ee uu kufsaday waxaa loo malaynayaa inkastoo weli aysan caddayn in lacagihiisii qayb ka mid ah magdhow ahaan oo kale in loo siin doono. 2 Juulaay ee sanadkii tagay ee 2020 ayaa waxaa la soo qabtay saaxiibadiisii sanado badan falkani ay iskala shaqayn jireen Ghislaine Maxwell. eedeymaha iyadana loo soo jeediyey waxaa ka mid ahaa in gabdhaha iibintoodii iyo safarada in ay ku wehelin jirtay. Waxa ayna sheegtay Ghislaine Maxwell in dhammaan waxyaabahaasi oo dhan ee loo soo jeediyey eedeymaha inaysan waxba ka jirin. Jeffrey Epstein wax walba ee uu samayn jiray waxa ay dhahday waxba kama ogi. Dacwadeedii maxkamadda Ghislaine Maxwell sanadkani 12 Juulaay 2021 dhowr bil kadib ayaa la rajayn doonaa in mar kale maxkamadda la soo hor istaajiyo. weliba dacwadeedu waxaa la qorsheynayaa in ay socon doonto muddo 3 isbuuc ah. Ghislaine waa laga diiday iyaduna in damiin ay ku baxsato. Haddii dacwadana ay ku cadaato waxa ay xabsi mutaysan kartaa muddo 35 sano ah. Wixiisa tafaasiir dheeraad ah ee Ghislaine Maxwell ka soo baxana sanadkan ayaan ogaan doonaa. qisada Jeffrey Epstein dhinac marka laga fiiriyo waxaa ku jira casharo aad u badan oo laga baran karo. Marnaba qofka inta uu nool yahay waa inuu iska ilaaliyaa xaqa qofka kale. Sidoo kale qisadani waxa ay muujinaysaa lacagaha tirada badan sida qofka bani'aadamku ay uga dhigaan qof awood leh oo lama taabtaan ah muddo kooban. Waxaase ku jira cashar kale oo ah in lacagtu ay jirto xilliyo qofka aysan badbaadin karin. Halkani ayayna inoogu dhamaatay qisada Jeffrey Epstein. Waa inoo muuqaalo kale oo ka xiiso badan Jeffrey Epstein.